قرا عبد الرحمن يوسف تعالى بوبه oo maanta waraysi gaar ah siinay telefishinka caalamiga SAB ayaa ka warbixiyay mushkiladda iyo aafadan ay soo saareen ciidamada booliska isla markaana timaha lagaga xirayo dhalinyarta waxaana uu sheegay in la raadiyo xal aan kaas ahayn oo ah qabqabashada iyo sidoo kale timo ka xirista dhalinyarta balse waxa uu soo jeediyay عبد الرحمن يوسف تعالى بوبه in xal la raadiyo aan ahayn kan qabqabashada ah iyo kan timo ka jaridda ay sameynayaan ciidamada booliska Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri ilaahay sanadka cusub ee 2018 inooga dhigo mid barwaaqo iyo nabad iyo badhaadhe aynu ka helo inta waxa ay xiga mowduuca ugu badnaa bariyahan ee lagaga hadlayay baraha bulshada ama sida aan maqlay magaalada Hargeysa ka socda waxa weeye qabqabashada la qabqabanayo dhalinyarada oo laba ah qaar lagu eedeynayo inay ammaanka wax u dhimeen oo la xirxirayo iyo qaar la leeyahay ciidamada boolisku ma qasbaysataan oo timaha ay ka xirayaan waxaan ku darsanayaa codkaygan nin garyaqaan ah oo xalay ka hadlayay SAB TV Guuleed Axmed Jaamac Dalfac oo daafacay xuquuqda dhalinyaradaas timaha ilaahay baa beeray timaha hadii la gooyo timuhu way soo baxayaan timuhu waa timihii ilmaha laga gooyayna waa ilmihii isaguna isbedeli maayo timuhuna isbedeli maayaan xal maaha waa deeleydii darandoorisan qaad dib u soco hore iyo dib u soco la daaweeyo taagnow waxa la yaalo isbedeli ma jiraan ilmaha waa la qabanaya waa la xidhayaa dabeedna saldhiga la geenaya jeelka 2 sanadood baa loo gooynaya qaar ka soo baxay baa imika loo gooyo hadana lagu celiyay berritana wuxuu ka soo baxayaa isagoo kiyaadana mushkiladda dhalinyaradan haysata ma mid ay u galabsadeen oo ay isu keeneen aafada dhalinyaradan haysata waxa weeye dhibaatooyin isbiirsaday waa qaar dhaqaale waa qaar ijtimaaci waa qaar akhlaaqeed waa qaar diini waa dhibaato badan weeye internet aynaan garanayn waxa la yaalo wuxuu yahay baa ku furan oo mindi laba afla ah oo wax wanaagsan ka soo baxaan wax xumina ka soo baxaan waalidkii carruurtan dhalay xaalad dhaqaale adag bay ku nool yihiin ilma aanad qalin u iibinayn ilma aanad ra'iis la geynayn oo timaa ka xiirayn ilma aanad biil siinayn ilma aanad guri geynayn ilma aanad lacag iskuul ka bixinayn sida aad u xukumaysaad ugu talinaysaa oo wax adag weeye dhibtaas mujtamaca haysata marka hadaynu maanta xal u moodno inaynu timaha ka googoyno suuqa ku qabqabanno oo ku sharaf dilo ku karaama dilo xal ma aha ninka bilayska ah ee carruurtan loo diray ee la yiri ka soo googo timaha ama timaha ka googoynaya ka xirxiraya isagoo qudhiisu xaaladda qaalo adag bu ku nool yahayo waxa laga yaabaa gurigiisii inaan dhariba dab la saarin intii yareedu suuqa u shaxaadi lahaa reerkiisa isna tan ku mashquul yahay waa laba cududood aynu labadaba u baahnay bilayska iyo dhalinyaradu haday labadii iska hor yimaadaan aafa ka soo dilaacaysa halkaas waxaanu soo jeedinaynaa inaan xal loo arkin in carruurta wax dhibaato inankaasi timaha uu iska xiiraan lagu haysaa ma jirto isagu baa timihiisii waayay haddii xarraga mooday isaga u taala laakiin tii dhibaatada dalkan taala waxa weeye waa ammaan darrada aynu xal u doonno saldhig la geeyay iyo jeel la geeyana xal maaha aynu tashanno dawladda iyo dadweynaha aynu isu tagno dawladdu qorshe lagu heshiis yahay oo maangala oo waara hala timaado hadaynu dadweynaha nahay wixii tala aynu hayno wixii aynu qaadaan ma hay qaadaan luxdan wixii aynu hayno aynu inaguna ku darsanno sidaas baynu ku maareyn karnaa aynu isugu tagno laakiin tii si sarka xaadisa gaariye wuxuu yiri daacuunku naga guur kuma dabargo uu yiri baladu daacuun wadan ka dhacun waxa tiraa daacuun naga guuro naga tag day tagi maayo marka afadan dhalinyarada haysata waa mid taagane aynu isugu tagno dadweyne iyo dawlad aynu maara dhaba oo waarana u doono mubaarak faad dhagacade TV-ga SAB Hargeysa